waxaa koonfurta magaalada London ka dhacay xaflad weyn oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed. xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan iyo Soomaali aad u tiro badan. xafladaasi waxay dhalinyaradaasi oo isugu jiraan gabdho iyo wiilal ku soo bandhigeen hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, kuwaas oo qaar ka mid ahna ay wateen dhar ama astaamaha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu garto. goobtaasi ayaa waxay caruurta iyo dhalinyarada ku soo bandhigeen sawirada farshaxanka. sawiradaasi oo ay caruurtaasi sameeyeen ayaa waxaa loo soo bandhigay in la tuso dadweynihii ka soo qayb galay xafladaasi. sawiradaasi oo ay dhalinyarada ku tilmaameen inay u sameeyeen in nabadda ay arkaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqankeena quruxda badan. caruurtii soo sameysay sawiradan farshaxanka ah ayaa qaarkoodii wareysi la yeelanay, wareysigoodiina sidan ayuu dhacay. xanaan sawirkan maxaad ugu damacsaneed markaad soo bandhigaysay? waxaan ula damacsanaa inaan hidiyo dhaqanka Soomaaliyeed tusno, especially dadka muslimka ahaan gaaladan dadkan Soomaali ahaan culture-keena waxay tahay waa inta badan dadka fikirka naga qaataan waxa weeyaan oo dadkani mataqaana culture ma lahaan baxay dadka culture leeyihiin culture-kooda dhaqso dhaqma macnaheedu ma garatay. so it's time mataqaana proof gareeno may inuu dhalinyaro hadan nahay waxyaalo badan ma sameyn karnaa. dadka kale mataqaana dadka Soomaaliyeed mataqaana yani amba xumaata amba dariiq xum socota inaan tasnawayaan طريقة كسر نقدان وطريقة كلام تقنا أو في عن إني مستقبل كوجا وإكتان إن شاء الله. مجاي سريوة وحكوكا هاي هندي في دقن كالصومالية مركز وحاس لهن أنسجة أو صومالي أوكيشن كإيو ويدين كإيو وحاس الصومالية أو كل تمعنا سو وشجنا دا صومالية يزجرسي وحاس. مجا النصرة ما أنت حفلتنا تصوب دكتور ما حد كلا دمع سنة محاسبنا إن الماء Soomaali الناس كوكينو because ما هم جد كتاج تاجيه ما في عنه أنا كمحبرنا قرآن كمحاسوبنا معلن كان برا قرآن من فوتوشوب هذا برسي له استعماله كشغل مركل هذا محلو بهاي كمبيوتر كنا استعماله marka sidee dareemaysaa hadda dadka badan oo ka soo qayb galay xafladan ayagoo u badan Soomaaliyeed dad la yaqaano sidee dareemaysaa dareenkaaga sidoo yahay? We're very happy. Before mid-classubina, we did a play that was quite long. We're trying to focus on the pictures and moving in magazine. So this is more of a fundraising. So alhamdulillah, the turnout is really good. There's a lot of people here, a lot of performers. So it's really good to take part. So yeah. مسؤول كان محاسمة أنا سوسمي لكن محيد إليس Somali community. marka mas'uulka sameynayna kaligeena maxaa dharka Soomaalida dhaqankooda ana tusino saddex gabdho saaxiibahayga waay mas'uulka qaad madow iyo cadaan maxaa ka dhigay ana tusiyo markay dadka dukanayaan ilaahay color ma arko dadka oo different ma arko qof kasta isku mid oo arka. sidoo kale waxay caruurtaasi ku soo bandhigeen goobtaasi filan ay sameeyeen, filinkaasi oo ku guuleystay abaalmarin awood ah. filinkaasi waxaa qoray gabar Soomaaliyeed oo magaceeda la yiraahdo Intisaar. haddaba waxaan weydiinay sababta ku dhalisay inay qorto filinkaasi waxayna inoogu jawaabtay. filinka waxaana lagu yiri filin qora filin waxaad ka qortiin dadka nacamde sida like for example mental health issues ka Soomaaliga community ga haystaan and so waxaan ka qornay inaan Soomaaliya ku dhalatay dagaalkii wax ka soo aragteen halkan bay timid and problem ka teenage ka wadankan ba that's what she went through and mental markana she she had to end up visiting a mental health nurse. So we're just talking about the mental issues that we have in our Somali community. filinkaas sidaad ku soo bandhigteen ba wuxuu ku guuleystay awardkaasi muxuu ahaa? It was the young I think it was a film festival for young people and dadka yaryar teenager kay doonayaan inta filan sameeyaan so 7 other films and nanaga badana. sidoo kale maamulaha Elias Community Maxamed ayaanu waxaan weydiinay xafladan sababta ay u soo bandhigeen iyo waxay kala damacsan yihiin. wuxuuna yiri alxamdulillah aniga iyo Amiira iyo Nadiifa soo abaabulnay barnaamijkan aad iyo dhalinyarta dhan oo hortii ka wada shaqeysay barnaamijkan waxaan wadnay runtii ilaa sanadii dheeraad baan wadnay barnaamijkan oo ahaa mataqaana magazine inuu soo saaro dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada London. magaziinkaas oo leeraa cilmi dhalinyartu magaca u doorteen
waxaan doonaynaa inuu international runtii inuu noqdo dhalinyarta qorta dhalinyarta designka u sameeya dhalinyarta wax kasta ku qabta barnaamijkaas magasiinkaasi marka taa aawadeed baan doonaynaa inaan maanta oo kale inaan dadka u soo bandhigno barnaamijkaasi iyo sawiradan aad aragteen meesha oo mataqaan hadiya dhaqanka iyo wax kastaba ku saabsan oo sawirkan xagga ninka ka Somaliland haddaad aragtiin xaggan oo kale political pictures buu ku leeyahay haddaad aragtid waxa weeyaan dhalinyarta samaysay mataqaanaa sawir ku saabsan Djibouti Soomaaliya iyo Somaliland oo calaamadaas waa calaamadii nabadda weeyaan marka waa picture Soomaali carruurta dhalinyarta la shaqeynay sameeyaan ilays waxa weeyaan organization 5 sanadood bay xaggan ka socotay dhalinyartaba ayaa wada dhalinyartaba habeeya dhalinyartaba runtii aan doonayna masjidka meel kasta gaarsiiyo because horta waa laga talaabsaday carruurta Soomaaliyeed therefore marka waxaan doonaynaa in dhalinyarta carruurta Soomaaliyeed in mataqaana niyada loo kiciyo oo mataqaana waxa la fiican la tuso lagu abaabulo meesha haddaba ma aha markii ugu horeysay ee dhalinyarada ku sugan koonfurta London ay soo bandhigaan xaflad ay ku doonayaan inay tusaan waxqabadkooda wanaagsan dhalinyaradan ayaa waxay ahayd muhiimadooda inay goor walba ay soo bandhigaan wanaaga iyo waxqabadka ay muujiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Ingiriiska Nabil Hassan Noor Televisionka Universal caasimada wadanka Ingiriiska ee magaalada London